الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan halka bilaabeynaa muxaadaradii labaad oo ku saabsan axkaamta salaada. tii hore waxaan kaga soo hadalay shuruudda salaada. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi aqimi salaata salaada oog liduluuki shamsi ay liquruubi shamsi, marka macnaha uu habeenku gabalku dhaco ama cadceedu qarsoonto, ilaa qasaqi leyl ilaa habeenka mugdigiisa. taana waxa weeyaan waa salaadaha waxa soo gelaya sida maqribka, cishaa'iga. wa qur'aan alfajri, qur-aanka fajarka la aqriyo oo loo jeedo salaada fajarka qur-aanka lagu aqriyo. ina qur'aan alfajri, qur-aanka fajarka lagu aqriya kaana mashhuudan, waa ku la soo xaadiro. yaa soo xaadiraya? malaa'ig fara badan ayaa soo xaadiraysa. waxaa ka mid ahaa oo soo sheegnay salay salaada shuruuddeeda waxaa ka mid ahaa qiblada in la qaabilo, waa kasoo hadalay. waxaa ka mid ahaa aniya, niye in lala yimaado, waa maxaluha alqalb, waniyatu maxaluha alqalb. culimadu waxay dhaheen niyada meeshay niyadu fadhidaa waa qalbiga. watalafudu biha bidca, in niyada lagu hadlo oo naweytu la yidhaahna waa bidca baa la yidhi oo diinta kuma jirto. wadaliilu waxaa daliilu ah xadiidu nabiyi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat, xadiidka cumar uu warinayo. inama alacmaalu, inamaa in kalema alacmaashu acmaashi binniyaati, niyadii ku tacalluqdaa. wa inamaa likulli imri'in maa nawaa, ruux walibna wuxuu niyoodo unbuu helaa weeyaan. xadiidkaasaa diya yaa u ah daliil u ah niyada. camal kasta oo sameynayno oo salaadu ka mid tahay waxaa loo baahan yahay ruux muslimkii inuu yani waxa weeyaan uu niyo la yimaado. haddaad niyo la iman weydo camalku ma asaxo. intaas hore waxay ahayd shuruudda salaada ayaynu kasoo hadalnay. waxaa kaloo kasoo hadalnay dahaarada. halkan maanta waxaa kale aynu kasii bilaabeynaa insha allahu tacaala oo salaada un ku saabsan axkaamteeda. arkaanu salaat, arkaanu salaa, arkaanta salaada yaynu ka hadlaynaa. marka arkaanta salaada waxaa looga jeedaa rukniyaha salaadu ku taagan tahay, sida arkaanu islaamka waa wax weeye oo kale. arkaanu islaamku waxaa la yidhahaa bunya alislaamu calaa khamsin. xadiidka nabigu wuxuu ahaa islaamka waxaa lagu dhisay 5: shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana maxamedan rasuulullah wa iqaamu salaa wa itaau zakaa wa sawmi ramadaan wa xajulbeyt. intaas waa arkaanta islaamka. laakiin harkan salaadiiba iyaduna arkaan bay leedahay. arkaanteeda waxaa ka mid a salaada alqiyaam maca alqudra, ruuxu inuu istaago hadduu karo. hadduu kari waayo fadhigu ku tukan karaa oo kalaa taagnibaad ku tukanaysaa weeyaan. waa arkaanta salaada ka mid taho haddaad karto fadhigu ma asaxayo. salaaduna waxay noqonaysaa salaadan saxiix ahayn haddaad istaagi karto. wa takbiiratu lixraam, in allahu akbar la yidhaah. takbiiratu ixraamku waa salaada takbiirta laga bilaabo oo kolkaad istaagto oo taagni ku tukanayso dee salaada bilowgeedii waxaa ka mid a allahu akbar. takbiiratu ixraam baa la yidhaahayo waxay xarimtay in hadal iyo waxyaala xunxun iyo waxyaalo kale oo dhan lagu hadlaba. xun iyo samaanna toona ma aha. ruuxu inuu waxba kale oon salaada ahayn ku hadlo lama ogola. taas waa rukniga labaad. wa qiraa'atu lfaatixa, ruuxu waa inuu faatixada aqriyo lixadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab, ruuxaan faatixada aqrin salaad uma jirto. walidaalika ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu faatixada akhristo markuu salaad tukanayo. hadduu suurad kale ku daro oon faatixada ahayn waa iska sunno siyaadaa weeyaan. laakiin faatixada in la aqriyaayay arkaanta salaada ayay ka mid tahay oo la-aanteed salaadu ma asocdo. waxaa ka mid ah arkaanta salaada alrukuuc, ruuxu inuu rukuuco oo ka afraada ruux macnaha inuu rukuuco. rukuucda waxa weeyaan labada loo oo la qabsado. rukniga shanaad waxa weye war rafcu minhu, in laga noqdo rukuucda inaad kor uga noqoto, istaagto, si fiican isu taagto ood ka noqoto rukuucda. wasujuud waxaa ka mid ah ka kale rukniga kale asujuud cala alacdaa'i 7, 7 xubnood in laga sujuudo yaa ka mid ah arkaanta salaada oodan midna ka tegi karayn. waxaa labada 7 xubnood waxa weeye wejiga,
labada kaf labada low labada lugood maartay farahooda weeye oo waxa weeye sankuna waa ku jiraa wejiga markaynu ka hadlayno marka toddobada weeyaan waxa weeyaan waa wejiga labada kaf oo gacmaha meeshaasi waa 3 labada low marka lagu daro marka waa 5 waxa weeyaan labada lugood darafyadooda waxa weeye toddobada weeyaan marka waxaanu rabay inaan baraarujiyo idhaaho kadalika ruux macnaha markuu sujuudayo sankana waa in la raaciyo laakiin dadka qaar baa wejiga dhulka aad ugu qabta kolkuu wejiga aad ugu qabto waxaa laga yaabaa inuu nabar soo gaaro ama maaragtay isxanuujiyo lama rabo diintu waa iska dhib yar tahay marka waxaa loo baahan yahay inaad sujuuddo ood caadi u sujuuddo baa lagaaga baahan yahay intaa ka badan lagaaga baahna inaad wejiga dhulka kusii xooqdo shardi maaha والاعتدال منه إن الاعتدال السمايو أو كل كاد مارتي سجود يسو هاد سبي عن السجودات كسجناته أو حبناها قاعد سبي عنه دكتويان يا كمدا اعتدال كرنتي وسود قال يا أركان طول اعتدال كوعوي جد كاغ أو سبي عن ستة قوي مركز صلاة تونسو وكمدا أركان الجلسة بين السجدتين لو السجودات لحدود فرد غير لا فريستو وقد سجود هورا سميسو ayaad soo fariisanaysaa intaad sujuudda kale ku celin kaas ayaa arkaanta salaada kamid ah fadhiga yar baa kamid ah labada sujuudood u dhaxeeya dayib wadumaanatu fi jamiic al-arkaan waxa kamid ah arkaanta salaada in lagu xasilo salaada hadduu ruuxuna ku xasilina uu dedejiyo oo waxa weeyaan yan naqri waxa la yiraahdo uu sameynayo salaadu ma asaxdo weeyaan naqri waxa weeye ruuxu iska degdego oo waxa weeyaan aan markuu tukanayo xarakadii hore iyo ta kale isku dhex dara marka ma asaxdo salaadu haddii saa la sameeyo الترتيب صلاة إن لا ترتيبية كمدا ترتيب توحى لوجه جدا إن لقى صوب الله الله أكبرته أو توس كان الله صوب ذوي هذا ترى مثلا التحيات كان صلاة كبر الله يا واحد كان هذا تراه صلاة ما صح سويا يعني. طيب وأركان الصلاة كمدا التشهد الأخير التحيات كدم به التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات دي هسا كمدا لكن لبدا التحيات كهره وينو من دون واجبات كصلاة كجرا كنا أركان الصلاة كجرا كأوجد دم بيا أركان الصلاة كجرا هدور روح كتب صلاة ما صعده يدور دم والجلوس له فدي لغو أغريا كمدا فدي لغو أغنى يا أركان الصلاة كمدا وأركان الصلاة كمدا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له صليوا التحيات كانت بدحيسة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كان إلى آخره لقى قالوا أركان الصلاة واحد كمدة التسليمتان السلام عليكم تا كمدة السلام عليكم كمدك تا يتبدح دا هذا إنه أنت سواء بريء تبنك أركان تايد مرك haddaynu sharax yar dheer ka bixinno qiyaamka aynu hadda ka soo hadalnay ee salaada taagni in lagu tukado ilaahay baa subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusdaa waqumuu lilaahi qaanitiin xaafiduu cala asalawaati salaadaha xifdiyaa la yidhi wasalaati alwusdaa salaada dhexdhexana aada u xifdiyaa la yidhi waa teestalo talaadaasi salaada dhexdhexa waxaa la yidhaha sida culimmadu u badan yihiin waa casarka culimada qaarna waxay dhaheen waa fajarka salaada fajarka subaxa marka alla wuxuu yidhi waquumuu kaca lilaahi ilaahay isu taaga qaanitiin idinkoo qunuudsan idinkoo macnaha qunuudsan oo khushuucsanoo yacni toosan weeyo ilaahay adeecaya kolka quumuu baa la yidhi marka meeshaas waxaa ku tusinaysaa salaada in taagni lagu tukanayo dayib rukniga labaad ee soo sheegnay oo waxa weeye waa takbiiratu ixraam ku ahaa xadiid baa isna sheegaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim salaada waxaa xarimaya hadalka ka xarimaya in allahu akbar lagu bilaabo waxaa hadalka kuu banaynaya atasliim inaad maxaan ku idhahaa assalaamu calaykum tiraha nacam masaa'il waxaa jira hadda arkaantan ka hadlaynay iyaguna meesha ku jira oo markaad hadda allahu akbar tiraaho kadib waxaa la aqriyaa duco
subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka asmuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka ka mid a waxaa ka mid a wajahtu wajiya liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin ducadaas ilaa aakhirihi laga gaadho ducadaas waa sunnada salaaddii ka mid tahay macnaha hadduu ruuxu ka tago salaaddii way asaaday laakiin shay fiican oo dee nebigu sameeyey buu ka tegay un weeyaan arkaanta ka mid maaha waa la aqriyaayo lagama tago laakiin waa sunna weeyaan macnaha waa inaan kala baranno shayga rukniga la yidhaha iyo sunnaha taasi waa sunna macnaha waxaa looga jeeda haddaad ka tagto salaaddii way iska asaaday haddii kalena ajri badan unbaad ka tagtay faatixada oo la aqriyaa ka mid a saan sheegay iminka hadda waxaan aqrinayaa adilada un baan u jeedaa nabigu calay salatu salaam xadiidku wuxuu ku yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab ninkaan faatixatulkitaab aqrin faatixada kitaabka lagu bilowda ninkaan aqrin yaa salaad uma jirto dadka qaar soomaalida faatixada wax yaryo kale ka aaminsan yihiin oo raba inaan yar taabto iyadana waxa weeye faatixada qaar waxay u fahmaan macnaha inay bimacnaa duca tahay oo faatixada macnaha faatixa markaad tiraahd waxay u aaminsan yihiin ducawn falidaalika dadka qaar baa waxaa maqlaysa isagoo kale war afar faatixa qaado afar faatixa intaad iska qaadato dee iska cafi weeye arrintaas niyow afar faatixa qaado macnaha afar duca qaado weeye yaa afar duco qaado weeye laakiin dadka qaarna waxaad arki marka la duceeye kadib ayaa waxay aqrinayaan faatixada oo kolkii ducada la duceeyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana iyo haddana kadib faatixada sii aqrinayaan kolka akrintaa faatixada halkaa la aqrinayaa daliil ma leh meel kuma sugna taas oo in duca kadib faatixada la aqriyo kuma soo aroorin dayib faatixadana waxa weeye umulqur'aan baa la yidhaah umulqur'aan ayaa la yidhaha qur-aanka hooyadii waxaa kaloo la yidhaah asabcu almathani toddobada soo noqnoqotaa xagee kusoo noqnoqotaa waxay kusoo noqnoqotaa qur-aanka mar kasta oon tukanayno toddobadaynu aqrino weeyaan yani ayaan kusoo celcelinaa faati toddobada waxaa looga jeedaa toddobada aayadood ee soo noqnoqdaa loo jeedaa toddoba aayadood oo soo noqnoqda ayaa loo jeedaa kolka umul qur-aan marka la leeyahayna ummu waa asalka ummo waxaa la yidhaha waa hooyo hooyana waa ta macnaha waxa weeyaan waa dhasha ee bilowga ah oo macnaha usrada hooya asal u ah laakiin waxaa looga jeedaa umul qur-aan yani qur-aankaa lagu bilowdaayo dee inaad tartiibta qur-aanka markaad hadda aqrido xaggaasaa laga soo bilaabaa nacam dayib taasna waxay ahayd faatixada oo la aqriyo oo haddaan faatixada la aqrin salaadu ma asaxdo weeyaan haddii aynu ka hadalno maxaa kale rukniga rukuucda dee rukuucda waxa weeyaan waa labada low oo la qabsado oo hoos saa loo qabsado dhabarkana la sibo oo labada low markaad gacmaha ku qabanayso gacmaha waad yar kala bixinaysaa ruknigaasna waxa weeye rukniga aan soo sheegnayoo xagee ka sugnaatay arrintaasi dee nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa ayay ku sugan tahay kulli waxaa hadda aan sheegnay oo dhan xadiidku ku sugan yahay wax ra'yi soo galo ma jiro ra'yiga waxaan ka leeyahay macnaha cibaadaadka ra'yi ma galo waxaa kaloo rabaa inaan halkan ku daro arrin muhiima waa maxay cibaado kasta oon samaynayno wax kastaoo ilaahay loogu dhowaanaya yaa loo jeedaaye laba shardi baa loo shardiyaa oo aasaasa shuruud kalena waa jirtaa laakiin laba asaas la shardi yaa aasaas weyna shardiga u horeeya waxa weeye alikhlaas waa in ilaahay darti loola jeedo oo haddii oo alriyaa wasumca hadday soo gasho istus iyo haddaa waxaas hadday soo gasho camalku ma asaxo shardiga labaadna waxa weeye almutaabaca mutaabacada waxaan uga jeedaa waa in daliil loo hayo oo daliilkaasi ama qur-aanka ku sugan yahay ama sunnada nabiga ku sugan yahay calayhi isalaatu wasalaam labadaa shardi baa shardi ah nacam aljalsatu bayna asajdatayn yani waxaa daliil u ah yaa ayuha aladiina
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آياتنا هو يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي رميو اركعوا ركوع علي marka aayadu maxay ku tusinaysaa rukuuca sujuudana way ku jirtaa wasjuduu sujuuda wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda wafcalu lkhayra khayrka sameeya lacalakum tuflixuun marka aayaddani waa aayad weyn dhowr arrimood bay daliil u tahay rukuucda way u tahay sujuuddana way u tahay labadaba way u tahay xadiidkuna wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi umirtu an asjuda calaa 7 acdumin waxaa la amray inaan ka sujuudo 7 xubnood 7 xubnood waan soo sheegay marka waxa weeye rugniga kale ee tartiibta ana dee waxa weeyaan xadiidkaa ku tusinaya isagana oo waa maxay xadiidkii naamrta xadiidtu musii'u salaatihi ninkii salaadiisa xumeeyey intuu masaajidka soo galay nabigu waa kii ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi id dakhala rajulun fasallaa nin baa soo galay nabiga calayhi salaam baynamaa naxnu juluusun cinda nabiyi buu yidhi xadiidka abu hureyra warinayo wuxuu yidhi maalin annagoo nabiga la fadhina yuu nin soo galay masaajidka faqaama wuu fasallaa waa tukaday fasallama wuu salaam naqsaday wuxuu yidhi dakhala rajulun fasallaa waa tukaday faqaama wuu istaagay fasallama kadibna assalaamu calaykum buu yidhi فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نبي السلام فقال النبي كويري ارجع نقو فصلي تكو فإنك لم تصلي ولم بعد تكنه فصلى ففعلها 3 سدح جرب ساسمي وكون نقضي صلاة دي مركز مركز دم وحيري والذي بعثك بالحق إلهي بان كل دارتي إلهي حق وقل صدر بان كل دارتي يا نبيا أظن نبي إيه لا أحسن غير هذا بي نبي إلهي بعث نبي إلهي أظن وان كل دارتي إلهي حق وقل صدر intaa un baan garanayaa buu yidhi facallimnii bar faqaala nabiyu nabigaa ninkii baray marka wuxuu ku yidhi idaa qumta markaa istaagto ila salaati salaada fakabir marka u horeysa allahu akbar dheh tuma aqri maa tayasara macaka min alqur'aan aayad tuma maa tayasara min alqur'aanka waxaa looga jeedaa id bacda alfaatixa faatixada wixii ka dambeeya weeyaan tuma rkac rukuuc baa la yidhi xataa tadma'ina raakican marka dumaaninadan hadda ka hadlaynay wuxuu yidhi nabigu calayhi salatu salaam xataa tadma'ina raakican ilaa aad si fiican rukuucda ugu xasiso uma arfac xataa tactadila qaa'iman dib uga noqon rukuucda xataa aad si fiican isaga taagto uma asjud xataa tadma'ina saajidan sujuud ilaa aad sujuudda ka sugnaato weeyaan uma arfac xataa tadma'ina jaalisan haddana si fiican u fadhiiso oo ku sugnow uma afcal dalika fii salaatika kullaha baa layidhi salaadaada sidaa uun u samee baa la yidhi ho sidaa hadda aan kuu sheegay uun u samee buu nabigu ninkaa ku yidhi calayhi isalaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa inuu sifo khaasa nabigu ninkaa baray si gooniya in la baray oo la yidhi sidaa u tuko marka inaguna nabigu un baan ku dayanayna calayhi isalaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana leanna nabigu isagaa xadiidka wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli wuxuu yidhi tukada saad ii aragtaan anoo u tukanayo unu tukada buu nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam wa sidaad aragtaan anoo u tukanhayo unu tukada si kale ha u tukanine xadiid kalea jira halkaa dhumaaninada in salaada lagu xasilo nin xadiid athar baa jira nin salafkii ah ayaa wuxuu arkay nin kale oo tukanhayay yuu arkay oo salaada aan ku xasilayna dedejinaya su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi mundu kam kunta tusalli fi hada salaa imise sanaad yaad sidan u tukanaysay buu yidhi kolkaasuu wuxuu ku yidhi 40 sana 40 sano saa un baan u tukanayay buu yidhi wuxuu ku yidhi lam tuqbal minka salaatu 40 sana 40 sano salaad lagaama aqbalin buu ku yidhi marka 40 sano wax salaadahoo laga aqbalay ma jirto yidhi marka waa khasaare ruuxu hadduu macnaha uu salaada ku xasili waayo khasaaro weeyaan atashahud alakhiir atixiyaadka dambe rukn mafruudun kamaa fi lxadiidi can ibni mascuud warkaasina waa rukni sida xadiidka cabdullahi bn mascuud ku sugan radia allahu canhu allah ka ramnada cabdullahi bn mascuude nin wuxuu ka mid ahaa asxaabtii nabiga ka mid ahaa baa aada u fiican wuxuu yihi kunaa naquulu waxaan odhan jirnay qabla an yufrada calayna atashahudu assalaam intaan atixiyaadkana lagu faraldiyeerin waxaan odhan jirnay assalaamu cala allah
min cibaadihi assalaamu calaa jibriil wa mikaa'iil saasaan odhan jiray buu yidhi assalaamu nabadgelyo calallah ilaahay korkiisa ha ahaato min cibaadihi addoomihiisa ka ahaatay assalaamu salaam ha ahaato calaa jibriil korkiisa ha ahaato wa mikaa'iil wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam laa taquluu assalaamu cala allah min cibaadihi fa ina allaha huwa asalaam arrintaa ha odhanina buu yidhi maxaa yeelay lianna allaha ilaahay isagaaba salaama buu yidhi ilaahay isagaaba salaamaba walaakin quluu waxaad tidhaahan attaxiyaatu lilahi walsalawaatu walطayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatuhu assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu rasuulu sidaa aqriya buu yidhi ataxiyaadka waxaa looga jeedaa wa macna ataxiyaat jamiicu tacdiimaat wax la weyneeyo oo dhan ilaahay baa iska leh mulkan wa istixqaaqan ilaahay unbaa iska leh waxaasoo dhan wax ka tacdiim oo dhan weyneyn oo dhan yaa iska leh alleh nacam falidaalika eesh ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wax la weyneeyo oo leh salawaadkana macnaheedu bimacnaa raxma weeye wasalawaatu naxariisyaala weeyaan nacam wasalawaatu macnaha jamiicu dacawaat waa duco oo dhan iyo naxariis wa qiila alsalawaatu alkhamsi salaadahan caadigaana waa la yidhi dayibaadkana wax wanaagsan oo dhan baa la yidhaah wadayibaatu macnaha waxaa looga jeedaa waa wax wanaagsan oo dhan ama qowla ama ficla xadiidka nabigu wuxuu ahaa in allaha tayibun laa yaqbalu ila tayib wa in allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin falidaalika waxa weeyaan dayib wax kastoo wanaagsan baa yaa loo jeedaa ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala dayib intaasi waxoogaa muqtadafaad weeye aljuluusu litashahud ilakhirna dee nabigu ka sugnaaday oo nabigaa fadhi ku tukan jiray marka hadduu nabigu fadhi ku tukan jiray aduu de istaagi maysidoo taagnin baan ku aqrinayaa ma odhanaysid atixiyaadkaana oo waa in fadhi lagu aqriyo isagana nacam uma ibraahimiyadan waxaa ka mid a rukniga saddexaad waxaa ka mid a ibraahimiyada waxaa loo jeedaa tan la aqriya la yidhaha allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima allahuma salli ilaahu u naxariis ziyaadi calaa muxamed wacalaa aali muxamed iyo maxamed ehelkiisii kamaa sallayta sidaad ugu naxariisatay calaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim wacalaa aali ibraahiima ibraahim ehelkiisii inaka xamiidun majiid inaka adigu xamiidun kii lagu mahadiyata majiidun la sharfo wabaarik ilaahu barakee calaa maxamed ilaahu barakee wacalaa aali maxamed ehelkiisiina ilaahu barakee zawjooyinkiisiina waa la yidhaha dadkii rumeeyeyna waa la yidhaha kamaa baarakta calaa ibraahim saabd ibraahim u barakeysay wacalaa aali ibraahim ehelkiisiina filcaalamiin caalamiinta dhexdooda caalamiinta waa soo sheegnay caalamka waxaa la yidhaha kullu maa siwa allah inaka xamiidun majiid ilaahay adigu kii lagu madaya majiidun kala sharfo nacam marka kaa in la aqriyana oo waa kala laba atixiyaadka dambe ka dambeeya rukn min arkaani salaa wey hadduu ruuxu ka tago ma asaxdo ugu dambeyntii ka 14 waxa weye atasliimataan nacam assalaamu calaykum ruuxu labadaaba waa inuu yidhaah waxa weeye hadduu odhan waayo ma asaxayso salaadu taasina nabiga ayay ka sugnaatay calayhi isalaatu wassalaam nacam culamada qaarna waxay dhahaan atasliima aluulaa ruknu min arkaani salaa assalaamu calaykum ta hore arkaanta salaaday ka mid tahay watasliima athaaniya tasliimada labaadna assalaamu calaykum ta labaadna waa sunne culimada qaar baa saa qaba laakiin almuhim sidaa uu nabigu u tukan jiray calayhi isalaatu wassalaam ee ka sugnaatay nabiga iyo asxaabta un baynu raacaynaa diintu waa yusri way iska dhib yar tahay walan yushaada diinu ilaa qalabahu marka diinta inagu iskuma adkaynayno sidaa nabigu u tukan jiray keliya isaga tuko khuraafaad iyo bidcooyin iyo waxaan loo baahnayn iyo wax ikhtiraacada oo aad u adkaynsatay ha ku soo darin cibaadaadkana saan u sheegayba lama keeni karo waxba laguma soo dari karaba aslan intaasina waxay ahayd arkaanta salaada iminka hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo masalo kale
oo dadku badanka ayna aqoon iyadana waa maxay waajibaatu salaa dad badan baa isku qasaa rukniga arkaanta salaada iyo waajibaadka marka halkan aynu ku kala saaraynaa maxaa u dhexeeya waajib iyo eesh iyo rukni waajibka waxaa la yidhaha fal arkaanu ruknigii waxa weeye maa saqada minhaa sahwan oo camdan badalat isalaatu bitarkihi haddaad rukni arkaanta salaada kamida ka tagto salaaddu waa buraysaa ama kas uga tag marka ama kas uga tag ama kamaaba uga tag af soomaaliga kas uga tag kas macnaha waad u kastay weeyaan ama kama uga tago ama waad halmaantay weeyaan labadaaba haddii looga tago salaad way burtay taasi waa arkaanta waajibku wuu ka bedelan yahay waajibku waa maxay hadduu ruuxu waajibka kas uga tago salaad way ku burtaa hadduu laakiin halmaamo ama kama uga tago ama macnaha halmaan uga tagay markaa salaadi waa saxiix way asaxaysaa laakiin sujuudu sahwi unbaa lagu kabayaa intaasna waxaan ku daayey oo rabaa inaan idinku baraarujiyo oo inagoo dhan isku baraarujino arkaanta rukniga arkaanta salaada iyo waajibaadka farqiga u dhexeeya marka kamil waajibaad marka su-aal baa isweydiin kartaa waajibaadku maxay tahay waasi intee weeye imse weeyaan alwaajibaatu salaad awalan ka u horeeya waxa weeye jamiicu takbiiraat gayra takbiirati alixraam allahu akbarta salaada ku jirtoo dhan waa waajib marka laga reebo tahore de waa anigi soo jawaab arkaanta ka mid tahay qowlu samica allahu liman xamida qowlu subxaana rabbiya alcadiim baan ujeedaa qowlu subxaana rabbiya alcadiim fi rukuuc subxaana rabbii subxaana waxaa nasahan rabbii rabbigay alcadiim ee weyn fi rukuuci rukuucdale subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi xadiidka qaar waxaa ku jirta wabixamdihi subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi haddaad subxaana rabbiya alcadiim keliya ku daysatana waa sax labadaba nus baa kusoo arooray qowlkaasi waajibaadka salaadu ka mid yahay qowlu samica allahu liman xamida lilimaami walmunfaridi samica allahu liman xamida in la yidhaha imaamka iyo ruuxa keligii tukanaya imaamka odhanaya taasina waajibaadka salaada ka mid ah qowlu rabbanaa walaka alxamdu lilkulli rabbanaa rabbigeenow walaka adaa alxamdu mahad iskale lilkulli jamiic lkulli waxaa looga jeedaa imaamka ma'muumka munfaridka ruuxa keli tukanaya saasa lilkulli kuwaasaa loo jeedaa waa inaad fahanto macnaha lilkulli waxaa looga jeedaa imaamka dadka tukanaya kuwa ku daba tukanaya ruux hadduu keligii u tukanayo intuba waa inay dhahaan qowlu subxaana rabbiya alaclaa fi sujuud subxaana rabbiya alaclaa subxaana waxaa nasahan rabbiga alaclaa ee sarreeyey fi sujuudi sujuudda marka lagu aqrinayo waxay ka mid tahay arrintaas waxay ka mid tahay waajibaadka salaada ka mid tahay qowlu rabbi ikfir lii bayna sajdatayn allahuma ikfir lii warxamnii wahdinii wajburnii wacaafinii warsuqnii warfacnii ducadaasi waajibaadka salaada ka mid tahay oo labada sujuudood u dhaxaysa yani waajibaadka salaada waxaa ka mid ah atashahud alawal atixiyaadka hore atixiyaadka dambe waynu sheegnay oo arkaantu ka mid yahay ka horaa waajibaadka ka mid ah waljuluusu lahu fadhi lagu aqriyo in fadhi lagu aqriyaa ka mid ah waa macnaha atixiyaadka hore in fadhi lagu aqriyo ayaa waajibaadka ka mid ah intaa hadda aan soo sheegayna waxa weeye waajibaadka salaada farqiga u dhexeeya waajib iyo ruknina waan ka soo hadlay marka ruux hadduu rabo inuu ka faa'iidaysto muxaadaradan oo kale iyo muxaadaraadka kale ee culimmaduba ay dhigaan waa in si fiican aad u fahanto arkaanta salaada shuruudeeda axkaamteeda ruuxa muslimkii waa inuu barto uu fahmo macnaha ma aha inaad weligaa iyo allaha muslimuun tahay laakiin aadan waxba baranayn ma aha inagoo dhan baa inaan baranno weeye carruurta yaryar inaanu barno weeye dadka aan aqoonin la baro weeye waa arrintaas waa arrin aada iyo aada waajib ah oo ruuxa muslimkii inuu sameeyo loo baahan yahay salaada waa anigii bilowga kusoo sheegay oo waxa weeyaan waa mawduuc weyn ama mawduuc dheer oo ballaadhan wuxuu u baahan yahay marka ruuxa muslimkii inuu aada u barto laakiin iminka hadda in yar maan ka soo hadalay waxaa iyana soo socoto aynu ka hadli doonaa sunanka salaada sunanka salaada waxa weeye waa waxyaalo iska ziyaado oo muna nabigu sameeyey caleyh isalaatu wasalaam oo sunno ah oo la sameeyo haddaba oo salaadu laakiin haddaad ka tagto ayna burayn waa in iyagana la barto
kolka waynu ka hadlaynaa kuwaana insha allahu si gooni baan uga hadlaynaa waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaaho fadliga ay leedahay salaadu fadli bay leedahay aad bay fadli badan bay leedahay salaadu waxaan ka hadli doonaa axkaamteedaan ka hadli doonaa salaada axkaamta maxaa looga jeedaa ruuxa salaada ka tagaa muxuu yahay ma muslim baa ma gaal baa muxuu yahay diintu maxay ka tidhi intaasoo dhan insha allah waan ka hadli doonaa marka tan waa muxaadaradii labaad insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynayaa inuu nagu anfaco maaragtay axkaamtaas barashadeeda iyo diinta camalfalkeeda ilaahay subxaana wataala ay nagu hanuuniyo wixii aan gafay fa minii wa min ashaytaan wixii aan waafaqayna fa min allahi subxana wataala wallahu aclam wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim